magaalada Brisbane sidoo kale waxaan rabnaa inaan wax ka ogaano qaabka Soomaalida halkan degan ay isku aasaan dabcan magaalada Melbourne way ka duwan tahay magaalada Brisbane qaabka la isku aaso dabcan Melbourne waxaanu aragnay in halkii qabri ilaa iyo 2 qof ama 3 qofba la isla geliyo magaalada Brisbane waxa aan la kulmay gudoomiyaha qabuuraha Soomaalida gobolkan Queensland Cabdi Faarax warbixin kooban bal iga sii qaabka Soomaalida halkan isku aasaan bismillaahir rahmaanir rahiim waad mahadsan tahay Bafo iyo TV-ga Universal qaabka Soomaalida Brisbane ama Queensland oo ay isu aasaan community-gu saan filayo way ka duwan yahay meelo badan oo caalamka ah oo iyo Australia-ba anaku as community-ga halkan siiba odayaasha dadka ah ee magaaladan degan ayaa muddo hore waxay bilaabeen oo hadda 10 sano ka horeysay in dadku ay lacag iska ururiyaan lacagta marka la ururiyo waxaa jira hay'ad kale oo funeral service provider oo dad ajaanibihii ay maamulaan in fact taas baan account ka furanay marka waxaa la sameeyaa qof kasta oo Soomaali ah oo yani ku dhinta magaalada Brisbane ee Queensland especially Brisbane oo aan ogaano inuu dhintay waxaanu haynaa fund arurinaa loogu talagalay in laga aaso regardless inuu iyadaan loo eegin inuu lacagta wax ka bixiyay inuu magaalada hore u deganaa inuu san deganay inuu caawa socoto ku yimi haddii qof muslina oo Soomaali uu ku dhinto magaalada Brisbane lacagtaas laga duugaa lacagta marka waxaa la sameeyaa sanadkii marba waxaan sameeynaa marka lacagtaas aad sheegtay lagu aasayo qofkaas qaabkee lacagta u aruursan marka lacagta horta ma nihin anaku organization sida hadda aad sheegtay oo kale gudoomiye oo anigu gudoomiye uma yihi ma nihin organization dhisan oo structure leh waxaanu nahay Soomaali odayaal ah oo community-ga ka tirsan elderska is xilqaamay lacagtaas odayaasha shira sanadkii hal mar bisha October September meelahaas dadkii baa lagu dhaqaaqaa qof waliba dadkii community-ga baa la target gareeyaa lacag wixii laga soo ururi kara la soo ururiyo 40,000 30,000 intaasaan sanadkii average-kaasaan ka soo arurinaa haddii lacagtii hore naga sii dhammaanaysay oo dad badan dhinteen sanadkii hore waa la top up gareeyaa laakiin mar walba waxaan ku dadaalaa in ilaa 10 qof lacag ku filan ay taalo akoonka noogu jirto meeqa marka cala qabri la iibiya qabriga qofkii waxa ku baxa $6,000 baa ku baxa $5,900 haddii ay sometimes way ka qaalisanaan kartaa haddii marka qofku dhintay weekend oo kale tahay inay xogaa ilaa 7,000 gaadho waa dhici kartaa laakiin average-ku waxa weeyaan waa $6,000 qofkii lagu aasayo marka hore miyaad u iibstaan qabuuraha ilaa 10 20 ma sii gadataan mise waxaad lacagta un baad haysaan oo qofka marka uu dhinto ayaad qabuuraha inta tagtaan aad godka u iibisaan anaku in fact godka ma iibino qabrahana hore uma sii iibsano hay'adaas baa waxa soo dhan noo qabata logistics ka soo dhan hay'adaas noo qabata anagu lacagtaan urursanaa akoonkoodan ku shubanaa marka qof Soomaali dhinto familkii nala soo xiriiraan yiraahdaan qofkaas dhintay baanu hay'adaas aan wargelinaa wixii logisticada oo dhan inay qofkii la soo qaado anagu foomamkii iyo coordination kaasaan sameynaa qofkii in la soo qaado cusbaalka laga soo qaado meeshii lagu dhaqay la geeyo janaasadii lagu tukado godkii lagu rido intaaba hay'adaas noo qabata marka waxa sheegtay in sanadkiiba mar lacagaad aruurisaan laakiin ma jirta in qoysaska halkan degan sanadkiiba ay iska bixiyaan lacag amba iyaga lagu aaso ama qof kale lagu aaso arin noocaas oo kale ma qabtaan may wax joogto ah oo ururin ma jirto sanadkiiba markaas la qabtaa waanu suuraysanaa maxaa inoo yaala akoonka inoo jira intaas ay jirta markaas fundraising campaign la qaadaa sometimes waxa markii intaan koronuhu jirin waxa la sameyn jiray casha la sameyn jiray dadka la isugu yeeri jiray markaas fundraising la sameyn jiray hadda labadan sano inta uu koronuhu aad u soo xoogaystay oo dadka ismaadkoodii la yareeyay waxa dhacdaa in dadkii uu la aado la target gareeyo dadka xilkaska badana markaan ku leeyahay $40,000 la aruriyo waa 400 qof baa lacag bixisay min $100 marka dadka joogaana waa 7,000 dad gaaraya marka intaasa waa fardul kifaaya 400 qof aanu ka bixisay lacagta baa 7,000 kale laga aasaya way jiraan wayna dhacday in familo ay iyagu qofkoodii ka dhintay aaseen oo anagu janaasada aan kala qayb galo qofkii marka isagu isku deeqtoon oo qofkii markuu ka dhintay safe hore u yaalay ama familku ay goosaan iyagu bixiyaan way dhacdaa wayna jirtaa
marka taasna waa waxaan kala qayb galaa janaasada oo dee waa community ka mid yihiin laakiin mainly waxaa anaga ku talagalkay waxa weeye qof kastoo Soomaaliya oo ku dhintay magaalada Brisbane inaan duugno lacagtiisina la hayo intii corona hadda uu jiray wax oo Soomaaliya uu la tagay ma jira oo dhintay cudur corona wax markii waraaqdii dhimashada sababtii dhimashada dhakhaatiirta ay cadeeyeen ay yiraahdeen corona u dhintay wali ma aanan arag laakiin intii corona u jiray dad dhintay way jiraan way godadka marka sidii Melbourne oo kale hal god ma qof ayaad gelisaan ma waa waasac way qof kaliya waxa la geliyaa xitaa hadduu yahay ilmo yaro stillborn ah oo aan wali caloosha ku dhintay waxa weeye waxa la sameeyaa gaarkiisa loo aasaa god gooni u leeyahay qof la dul saaraa ma jiro halkan isa saar ma jiro هذا ما سنت